runtii iskoorka uu horeysay uu jabiyo madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo iskoorkaas uu ahaa ummadda Soomaaliyeed yar iyo saqiir weynaan iyo kabiir qof walba inuu qalbiga ka xado qof walba shaqsi walba qalbigiisa ku noolaado taasi macnaheedu maana duu baxo ama xilka oo calaf u kali waayo in la ilaabayo qalbiyadeena maanta ka tirtiri karo cidna wuxuu noqday mid la jecel yahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu dhahay hadda intaas oo kun oo bilyan oo dadku jeclaadaan ehlu janno waa qofkaas because intaas oo kumanaan bilyan xataa way dhaafeen faante soo marka maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu noqday qofka adduunka loogu jecel yahay qalbiyadeena ay waxaad madaxweyne xataa noqonin weligeeda ma aragtay madaxweyne oo qalbiyada bilaadan ka tago no hore looma sheegin madaxweyne 4 sano markuu hayo xilka hal mar la ilaahay una dhaafi allah alxamdulillah loo diraa laakiin madaxweynahan qalbi ay waxaday runtii Soomaaliya hadii jir leed shacab iyo doorasho waxaan huway weligiisa farmaajo 50 sano hadda kadib inuu xilka ka tagi lahayn ayaan huway because one day waxaan rajeynaynaa shacabka inay doortaan madaxweynayaashooda not xildhibaan ma fahamtay soo xildhibaanada qalbiyadeena kama saari kartid madaxweynaheena kama saari kartid qalbiyadeena jaceylka madaxweynenimada ma fahamtay because shacabka Soomaaliyeed waxay rabaan nin daacad ah nin wadankiisa wax qabanayo nin dalkiisa wax qabanayo farmaajo waa nin Soomaaliyeed waa nin muwaadin Soomaaliyeed waa nin madaxweyne ani maanta weligiisa wuxuu ahaan doonaa madaxweyne farmaajo madaxweynaha markasta waxa aqoonsanay farmaajo because qalbiga ay ku jira waana jecelahay qof kastana mucaarad uu leeyahay laakiin ani farmaajo qalbigayga waaye madaxweynahan cusub hambale madaxweyne welcome xildhibaan isku sheegayaasha ana wax ay kalmala waxay rabaan inay I don't care Soomaaliya jooga adduunka lacag waa qaadateen aqar lacag ma qaadi doontiin aqriya la luushi doontiin sheega ila adduunka la luushi socod aqriya la luushi siin I don't care fahamtay farmaajo guuleyso ana oo ku jecelahay I wish hal mar leena ku arko halkaas mar bis haduu message-kan ku soo gaaro waa jeclaa lahaa asxaabi ay share gareeyay in hal mar arko farmaajo the last time because qofa adduunka saa u jecelahay qofa u jecel adduunka ma saarno waa daacadi waa wadanka waa noloshii wadanka asaa u baahan class farmaajo